dalka Kenya waxa uu noqday dalka ugu weyn ee soo saara caanaha guud ahaan dalka ku yaal qaaradda Afrika. Dalkan wuxuu kaalintan kala wareegay dalka Masar oo ah horaantii ayadu ku jirtay kaalinta koowaad xagga wax soo saarka caanaha. Waxaana warbixin la soo saaray ee sheegaysaa in Kenya sanad walba ay soo saarto caano gaaraya ilaa 5.8 bilyan oo litir oo caano ah sanad walba. Arrintan ayaa loo aaneynayaa in dawladda Kenya ay si balaaran u taageertay dadka xoolo dhaqatada ah iyo dadka beeraleyda ah. ayadoo la sheegay in warshadaha soo saara caanahan dalka Kenya ay shaqo abuur aad u fara badan u sameeyeen dhalinyaro aad u tiro badan oo Kenyan ah ama dad badan oo kamid ah shacabka dalka Kenya. Sidaa darteed Kenya waxay noqonaysaa dal dhan walba ka hormaraya haddii ahaaleed xagga tiknoolajiyada, xagga dhismayaasha, xagga wadooyinka, xagga kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhan walbaba. Kenya waxaa loo arkayaa mustaqbalka inay ka mid noqon doonto dalalka ugu horeeya una dhaqaalaha badan guud ahaan dalka ku yaal qaaradda Afrika. Dalkan si xawli ayuu korayaa marka dhan walba ka eegto. muddooyinka ugu dambeeyayna dalkan Kenya wuxuu ku talaabsanayaa horumar aad u ballaaran ayadoo ay jirto in Kenya loo arkayo inay noqoto hormuudka qaaradda Afrika. Kenya inay noqon doonto hormuudka qaaradda Afrika waxaa la soo weynayaa shirkii ugu dambeeyay ay yeeshteen dalalka loo yaqaano ama dalalka ku bohoway isbahaysiga loo yaqaano G7 waxaa ka qayb galay madaxweynaha dalka Kenya ee loo yaqaano William Ruto, taasoo muujinaysa in madaxweyne Ruto uu matalayo guud ahaan qaaradda Afrika. Sidoo kale waxaa cadeymo kugu filan in madaxweyne Ruto uu mararka qaar ka hadlo waxyaabaha ku saabsan guud ahaan qaaradda Afrika haddii aan leeyahay arinta ugu dambeysay ee ka taagneed garsooraha Soomaaliga ah ee Cumar Cartan loo yaqaan arintiisa oo uu ka hadlay taas oo muujinaysa in madaxweyne Ruto uu isku arko ama loo arkaba in uu yahay hogaamiyaha qaaradda Afrika. sidee kula muuqataa horumarkan balaaran oo dalkani Kenya sameynaya ma u aragtaa in Kenya ay noqon doonto hormuudka qaaradda Afrika ama dalka laga hogaamiyo guud ahaan dalka ku yaal qaaradda Afrika? aad iyo aad u mahadsantahay fikirkaaga commentiga inuu wadaag muuqaalkan like gareey page-kana soo follow gareey.